السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بندين سلام هيا طبعا واسنقانا وسركالكي أحمد بوس مركز طبع وانيقا ديبو إيغا عالنكا آن شعلنا هيا وإيغا ضمبيا the most beautiful flag in the world وأدونكا وقروح ضبضان ولا ليال وانيقا إيغا أوردها دانتايدو وادالكايغا دادكايغو وصومالي دميركايغو وادقالي وقميس ديدي قوباني مدوني مردن بانا كيني جيسياشي أحمد قري قاري قني مانا ديدي diidnay gudnimo segregation diidnay qabyaalad diidnay qabyaaladiista diidnay kala qoqob diidnay segregation iyo qad cagaaran diidnay maantay waa guul iyo gobannimo wixii dhiig lahow kaca dhalinyaradii Soomaaliyeed inay meel kasta abraysin ka sameeyeen inay indhihii u furmadeen oo yiraahdeen annaka oo nariinta wadanka annaka iskale Soomaaliya Soomaali baa leh waxa lagu gaambul gareynayo lagu ciyaarayo oo qabyaaladista iyo mid caloosh inta la eg tahay iyo kuwaan u bixiyay shilinka hoo sharafta keen waxa ay ku gaambul gareynahayeen inaan garanay oo inay dhaxalkayga ahayd aan garanay maanta guul bay noo tahay guul iyo gobanimaan idin leeyahay sharaf baa idin dul hoogatay sida dhalinyarada adduunyada kala dhalinyaradooda oo kale baan u kacnay maskaxdeedii u soo noqotay oon ogaanay maanta inaan leenahay wadan qurux badan oo Soomaaliya la yiraahdo waanigi markasta ku iskriim gareyn jiray oo oran jiray war miyaana xaq u lahayn war miyaana dhaxal u lahayn dhigeena inuu u nool yahay inaan u noolaano wiilka Ugandayska ah wiilka Kenyaatiga ah wiilka Jarmalka iyo Kanadiyaanka ah suu u nool yahay miyaana xaq u lahayn inaan u noolaano 2 years ago bay ahayd walaalayaal markaan ku iskriim gareyn jiray kelmadahaas my dream coming true waa guul iyo gobannimo maanta dhalinyaradii Soomaaliyeed inaan arkay ayagoo gees to gees kacay oo calankoodii saa u wave gareynaya the most beautiful flag in the world war waa guul baan idin leeyahay oo aan ku qaylinaa oo aan leenahay war maxaa annaka naga dhigay biyo fadhiya maxaa annaka naga dhigay dad aan dhiig aan lahayn oo qof asaga dantiisa ah oo daniista ah oo wax waay maartay uu jaranjarada ku fuulo meeshuu rabo ku gaaro halka markuu marahayeen inuu yiraahdo I don't know you guys war waxaas ma waxaan qaadan karnaa war waxaas ma waxaan yeeli karnaa war maantay madax waxaan haysanaa dhalinyaro ah maantay waxaan haysanaa madax noo soo jeeda oo og meesha loo socday adduunku soo u move gareynahay maantay waxaan haysanaa qaran aan ku faani karno wadan xor abaan nahay oo sovereignty ah maxaa dhiiga naga qaaday maxaa damiirka naga qaaday maxaa qabyaalad 30 sano indhaha nooga riday ma waxaan garan weynay wiilka dhigeena ah si u nool yahay inaan u noolaano taas walaalayaal waan ka gudubnay maanta waa guul baan leenahay haddaan nahay dhalinyarada Galmudug iyo dhalinyarada reer Puntland iyo dhalinyarada wax waaye meel kasta you name it oo Soomaaliya waxa weeye especially goboladu uu ra'iisul wasaaruhu uu joogo oo marahayo siday dhalinyaradu u soo dhaweeyeen gabdho iyo wiilal say u kaceen maanta waa guul baan idin leeyahay waa guul iyo gobannimo idin leeyahay taariikhda idin xusi doonta goobo weyn la ciiftaa gunuso waa liid annaka wax waaye maartay walaalayaal gob baan nahay gun manihin waa inaan fadhiga ka kacno waa inaan ra'iisul wasaaraheena aan garab istaagno waay oo ay wax waaye maartay meelaha qaarkood markuu marahayo loo diidahay dhalinyaradii inuu arko inuu dhex galo inuu wax waaye maartay uu la sheekaysto oo uu la wadaago informationada iyo wax waaye maartay message ku xambaarsan yahay in laga qariyaal rabaa waxaa la rabaa niman odayaal ah oo 80 jir ah oo gafanayaal ah oo gareefka u sii socda oo 30 sano wax waaye waxa soo dhib ah markay nagu dhacayeen ayaga laftooda included ka ahaa intii la horgeeyay in la yiraahdo waxaan rabnaa waxaan hadaan noo sameeyeen gad helaarhiye in la yiraahdo la rabaa taas ma dhacayso dhalinyaradii Soomaaliya meel kasta waxa weeye maartay ra'iisul wasaarihii baa yimid ra'iisul wasaarihii baa halkan soo marahaya markii la yiri ooday soo goosteen waxa waaye meel kasta ay ka soo yaaceen calankoodii ayagoo wata saasaana loo baahan yahay annaka weeye dadka loo shaqeeyo isaas waxa waaye maartay wadankan le oo dhaxalkan le oo dhulkan le oo Ilaahay siiyay annaka waaye awoowayaasheen way u soo dhinteen 6 feet deep bay ugu soo jiraan saan cadda iyo saan madoobe bay kula soo dagaalameen waxaan u sheegaynaa oon hawada u marinaynaa anybody oo damca inuu hor istaaga qarannimadayada madaxdeena sare qofkii damca inuu hor istaaga iyo dhalinyarada damca inuu kala qariyo inaan gacmaha iskula tagayno
inaan waxa weeye aan ka yeelayn inaan maantay aan soo jeedno indhahayga ay furan yihiin inaan dhib ka soo daalnay inaan qurbo soo aragnay inaan hoog iyo halaag soo aragnay inaan annaka gacmahaygii aan isku cadaabnay oo naloo adeegsaday oo miliibanayaasha lagu liibaanay intii naloo bixiyey kaayagii dhaawacmana halkaa lagu tuurahayay kii dhintana warkiisa badaa waxaas way soo dhammaatay maanta indhaheenna way furan yihiin qarannimo wax ka hoosaysa oo aan doonayna ma laha I repeat again qarannimo wax ka hoosaysa iyo sharaf iyo qurux iyo dignity waxaan ahayn wax ka hooseeya aan doonayna ma jirto laba walaalaa shan walaalaa hadday rabaan wasaaradaha wada qabsadaan qof qalla qofkii waxa waaye maaragtay asaga educationkiisa iyo kartidiisa meeshuu ku tagi karo iyo waxa waaye aaminnimadiisa baan rabnaa annaka waxa weeye reer iyo segregation iyo kala qoqob iyo qabyaalad iyo waxaasoo dhan daaqadan ka tuurnay dhalinyarada aad baan idinkugu hambaliyaynayaa meel kastoo aad joogtiin gabdho iyo wiilal maanta waan faraxsanahay waad arkaysiin inaan shaah cabahayo shaahu waa ani maanta guul iyo gobonnimo idin leeyahay cadowgii Soomaaliyeed walaalayaal feeruhu ka jabay meel kasta uu joogay waxa waaye maanta hankiisii baa jabay waxa la arkay dhalinyaradii Soomaaliyeed meel kasta inay uprising ka sameeyaan war kaca wixii dig lahow kaca baa idin leeyahay ha fadhinina social media soo gala calanka Soomaaliya calanka iga dambeeyo quruxda badan walaalayaal waxaan ahayn yaan isku arag xaafadahan iyo meelahan segregationka lagu kala sameeyay iyo magacyada loo kala bixiyay inaan jabino oo burburino waa inaan baabi'ino waa inaan niraahno waxaan yeeli karna ma aha qarannimo iyo dawladnimaan rabnaa sharaf iyo qurux baan rabnaa baasaboorkeena iyo diyaaradeena inaan hawada saa ugu galaalacaynaan rabnaa adduunka meeshaan rabno inaan marnaan rabnaa jaamacad kasta inaan galnaan rabnaa ma yeelayno wax ka hooseeya maantay qarannimo wax ka hooseeya ma yeelayno indhihiina fura haddii aad ra'iisul wasaaraha ka hor istaagteen haddii wax waay maartay aad tiraahdeen dhalinyaradii iskuulay ku jiraan dugsiyaal bay ku kala jiraan waa la mashquulsan yahay waa la jiifaa magaalada qarax baa ka buuxa saan ma aha sheekadii hore ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri where is my boys buu yiri aaway wiilashaydii aaway buu ra'iisul wasaaruhu yiri garabkiisa aan istaagna geesigu dhalay waxa waaye maanta wiil en qarannimadeedii iyo sharafteedii soo celinaya asaga iyo madaxweynaha iyo wasiiradooda cabinetka all of them walaalayaal waxa weeye qarannimadeedii iyo sharafteedii bay soo celinayaan aan fadhiga ka kacno ciidamadeena aan garab istaagno Soomaalinimada aan garab istaagno calankeena sharafta badan oo halka idinkaga dhalaalahaya quruxda badan halka idinkaga dhalaalahaya oo waxana loo ogolaan la ay tahay oo midka qof kasta waxa weeye cadow kasta uu masayrka uga jira iyo Ilaahay meeshuna dhigay oo istaraatiijiga ah oo aan naaxnaaxi doono oo shimbirahayga dadka iska daayay macal shimbiruhu naaxi doonaan oo daad wararac iyo barwaaqo aan noqon doono waxana loo diidan yahay halkaas waay meesha ra'iisul wasaaraha iyo madaxdeena qaranka iyo madaxweynuhu noo sheegahayeen waay waa buurta gadaasheeda oo barwaaqadu taalo wada jirku yaalo sharaftu taalo qarannimadu taalo guusha iyo gobonnimadu taalo halkaas weeye halkan loo diidan yahay maxaa buurta sokadeeda ka sokeeya waxa ka sokeeya shilinka hoo sharafta keen waxa ka sokeeya gafane waxa ka sokeeya wax alla wixii taag iyo crocodile iyo balaaya buurta sokadeeda ka sokeysa waa meesha uu ra'iisul wasaaruhu nala jiirahayo oo nala marahayo oo waxa waaye maaragtay and we feel the hate oo kulaylka waxa weeye maaragtay iyo hidka iyo aan dareemayna waay is a little rough waa xoogaa waxa waaye ma aha smooth road ma aha laakiin sa xanuunku ra'iisul wasaaruhu noo sheegay baan maraynaa maanta waa inaan adkaysano waa inaan waxa waaye maaragtay wiilasheennii iyo gabdhaheennii qaranka noo keenay iyo calanka quruxda badan noo keenay oo na soo gaarsiiyay oo yiraahdeen ku noolaada sida wiilka dhigiina u nool yahay ku noolaada sharaf ku noolaada oo ayakoo qoslahaya qaarkood dhinteen oo ayakiyo faraxsan waxa weeye maaragtay qaarkood ay walaalayaal ay u dhinteen ayakoo u halgamahaya halka qaranka weeye calanka iga dambeeyo waay meeshaan u soconana waa halka qarannimo weeye aad iyo aad baan idin salaamahayaa waa walaalkiin Axmed Boos waa idin wada hambaliyaynayaa aad iyo aad baan ugu wada hambaliyaynayaa dhammaantiin wax waaye dhalinyarada soo baxday gabdho iyo wiilal meel kasto ay ka soo baxeen star from Dhuusamareeb
ilaa waxa waaye gees to gees ilaa waxa weeye galguduud ilaa galmudug ilaa meel kasta ilaa waxa weeye all of them ay soo baxeen waa guul iyo gobonimaan idin leeyahay sharaf baa idinkaga tagahayaa calanka halka ka dhalaalahayo quruxda badan baa idinkaga tagahayaa oo mar kastaba aan dhaho waxa waaye calankeena siman salaama oo alla na siiyay gumbaan samrine qabyaalad isku soo catee mara suurad xun iyo xaafad orod suubso kuwa waxa waaye maaragtay maryaha intay ku buufsadeen rinjiga qabyaaladu dishay oo bukaan socodka ah oo ayakii oo dhan waxa weeye baaba ah kuwaas weeye xaafad orod suubso kuwaan leeyahay laakiinse wiilasha maanta waxa weeye gabdhaha sharafta badan oo calankaas intay soo qaateen waxa waaye maarta quruxda iyo backgroundka iyo sharafta ka soo baxaysay iyo wiilasha iyo dhalinyarada ra'iisul wasaaraha gacmaha haystay guul iyo gobonimo taariikhda aydan xusi doonta taariikhdu way qormaysaa baal dahaba baa qormahaya aan ka faa'iideysana baalka dahabka ah halkaasna aan galno ciidamada aan galno waad arkaysin ciidamadii meel kasta inay dhalinyaradii is wada qorahayaan guul iyo gobonimo geesiyaasha soo majeestayaasha dulmadiidayaasha diirlibaaxlayaasha wiilashii waxa weeye maaragtay sidaas gabdhihii iyo wiilashii laynka ugu jiraan oo u qoranayaan ciidamadii wadan aan waardiye lahayn soo wanqalan maaha wadankeena hadii annaka aan dabka ana u qaadan oo annakii waxa weeye maaragtay aan ciidanka aan noqon oo aan injineerinta iyo dhaqaatiirta iyo saraakiisha iyo aan noqon walaalayaal wadan aan waardiye lahayn soo wanqalan maaha doqon kasta iyo waxa weeye baaba kasta u soo hawoonahay guul iyo gobonimaan idin leeyahay maanta waa guul maanta shaaha caba shaaha waa aniga ma sha Allah aad iyo aad baan idin salaamahayaa Allah idin barakeeyo Soomaaliya Soomaali baa leh Soomaaliya guul iyo gobonimaan u rajaynayaa